dowladda Puntland ayaa war-saxaafadeed ay soo saartay ciwaan uga dhigtay magacaabis yaab leh. Puntland ayaa magacaabista ergeyga gaarka ah ee Soomaaliya iyo Somaliland ku tilmaantay mid lagu daboolayo dagaalka qaawan ee Somaliland ka wado Laascaano iyo ceeb u astirid laga maran habaabinayo beesha caalamka Muuse Biixi. In ka badan 2 bilood waxa magaalada Laascaano ka socday dagaal xasuuq ah oo ciidanka Somaliland ay doonayeen in ay gooni-goosad khasab ku meel mariyaan. colaadda Laascaano ayaa keentay barakaca in ka badan 200 oo kun oo shacab ah, dhimasho, dhaawac iyo burbur hantiyadeed oo baaxad leh. baahida ugu weyn ee maanta Laascaano ka jirta waa sidii gurmad degdeg ah oo bini'aadantinimo loo gaarsiin lahaa dadka ay colaaddu waxyeeleysay, ciidamada duulaanka ahna magaalada loogu dulqaadi lahaa. waxaa la yaab noqotay in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu si lama filaan ah koodii bishii Abriil 2023 Cabdikariin Guuleed ugu magacaabay waxa ugu yeeray ergeyga wadahadalada Somaliland. haddaba sidee ayaa loo akhrin karaa maxay ka dhigan tahay magacaabista Cabdikariin Guuleed? waxaa loo akhrin karaa marin habaabin qorsheysan oo lagu degdegay si indhaha dadka Soomaalida iyo kuwa beesha caalamka looga jeediyo colaadda iyo xasuuqa dadka reer Laascaanood, culeyskana looga dulqaado Muuse Biixi iyo kooxdiisa. dhayalsi iyo hoos u dhigid baaxadda culeyska mushkiladda maanta Laascaano ka taagan iyo gudasho la'aanta waajibaadka dastuurka ah ee difaacidda shacabka gobolka SCC. waxay muujinaysaa walwal iyo shaki ah in dowladda federaalka Soomaaliya aysan garsoore iyo dhexdhexaad ka noqon karin colaadda Laascaano iyo qadiyadda la isku hayo, maadaama ay aragti gaar ah ka leedahay gobolada Sool, Sanaag iyo qaybo ka mid ah Somaliland. sida muuqata qoraalka magacaabista, arrintani waxay dhinac marsan tahay tabashooyinkii dheeraa ee dadka reer Sool iyo go'aanadii ay ku cadeeyeen in aysan qayb ka ahayn Somaliland. waxaa kale oo ay dhinac marsan tahay in gobolada Sool iyo Sanaag ay Puntland wax ka dhisteen oo dastuur ahaan iyo wax qaybsi ahaanba ay Puntland la mideysan yihiin. haddaba waxaan ugu baaqaynaa xukuumadda federaalka Soomaaliya in aysan dhinac u xaglin ugana darin xaaladda murugaysan ee ka taagan magaalada Laascaano iyo gobolada SCC. hadalada dhilada leh ee ka soo yeeraya qaar ka mid ah madaxda dowladda federaalka Soomaaliya iyo eedeymaha gardarrada ah ee dusha looga saarayo hoggaanka dhaqanka gobolka SCC oo ah in ay iyagu ka dameeyeen dhibaatada Laascaano waa in la joojiyaa raaligelin laga bixiyaa. dowladda Puntland waxay ugu baaqaysaa xukuumadda Somaliland in ay ciidamadeeda kala baxdo gobolka Sool si nabad loo helo, dadka reer SCC in ay u ogolaadaan in ay ayahooda go'aan ka gaaraan iyaga oo xor ah. ugu dambeyntii waxaan ugu baaqaynaa dadka Soomaalida gaar ahaan shacabka reer Puntland iyo beesha caalamka in ay laabaan gurmadka iyo dadaalada bini'aadantinimo ee lagu garab istaagayo dadka ku waxyeeleeyay colaadda magaalada Laascaano iyo deegaanada hoostaga ee gobolka Sool.